wasiirka arrimaha gudaha, wasiir dowlaha, agaasimaha wasaaradda iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo Dr. Baadiyo oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha. kulligiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa danaha gobolka Banaadir shirkan dib u heshiisiinta ama wada tashiga dib u heshiisiinta hanaanka qaran oo maanta laga furo gobolka Banaadir. aad iyo aad u soo dhaweynaynaa. waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha wada shaqeynta wanaagsan iyo inay gobolka Banaadir ka bilowday. marka waa mar labaad iyo mar saddexaad oo ay mahadcelinaynaa mudane wasiir. annaga gobolka Banaadir ahmiyad weyn ay noo leedahay dib u heshiisiinta maadaama caasimadii dalka iyo muraayadii dalka ay magaaladan tahay. in magaaladan laga bilaabo magaaladan hadday caafimaado oo dib u heshiisiin dhab ah ay dadka magaaladan degan ay helaan, waxaan aaminsanahay in guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay caafimaadayso. waxaan marka u soo jeedinayaa tiimka gobolka ka socda ee halkan jooga ee matala gobolka Banaadir inay ka faa'iideystaan fursadan oo ay aragti dhab ah ay ka dhiibtaan nooca dib u heshiisiineed ay u baahan tahay gobolkan Banaadir. waxaan ognahay in dhibaatooyin badan ay magaaladan iyo guud ahaan dalka oo dhan ka dhaceen. dib u heshiisiintana 30 sano oo la soo dhaafay waa maalinba darajii soo joogtay oo waa la soo waday. waxaan hadda joognaa meel wanaagsan oo runtii aan fahmi karno waxa aan u baahannahay. marka dib u heshiisiinta aan u baahannahayna runtii waa mid aan ku wada noolaano dadka magaaladan degan ee nolol iyo horumar iyo adduunka intiisa kale ay ku tiigsadaan. aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa. wasaaradda arrimaha gudahana waa rajeynayaa in maaragtay ay ka soo saari doonto qaabka dib u heshiisiineed ee aan u baahannahay maalmaha soo socda. shirkanna waa annaga gobolka Banaadir fursad gaar u noo yahay. waana soo dhaweynaynaa, waxaana rajeynaynaa inaan ka faa'iideysan doono hadduu Alle. waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.